بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يليق بجلاله وبكماله وبعظيم سلطانه. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan ka hadlaynaa biidn illaahi tacaalaa haweeneyda ilmahu ay ka soo laabtaan iyo waxa daawada u ah biidn illaahi tacaalaa. had iyo goor waxaanu soo qaadano waa kalaamullah, kalaamuraxmaan. wax laysku daaweeyo isaga ka fadli badan oo ka fiicanna ma jiro. kalaamullah waa midka ugu sarreeyo, waana midka wax walbo ilaahay subxaanahu watacaala uu noo dhex dhigay. marka haweeneyda ay ilmaha ka dhimanayaan, ama islaanta ay caruurta ka laabanayaan, ama markay sidaa u dhashaan ha noqoto, ama markay caruur caloosha ku jiraan ha noqoto, gabadhaas ama haweeneydaas ayuu maanta ku saabsan yahay fiidiyowgan. insha allahu tacaala haddaad garanaysa haweeney noocaasa u sheergareya si ay uga faa-iideysato. ugu yeer qeybta faallada biidn illaahi tacaala si ay uga faa-iideysato. marxaba. waxaad sameyneysaa, waad qoreysaa aayaddan ayaad qoreysaa aan sheegi doono. waxaad ku qoreysaa saxan fidsan, waxaad ku qoreysaa zacfaraan iyo biyo. biyahaasi biyaha roobka inay yihiin baa fiican, balse haddaa weydo biyo kasta way ku anfacayaan. waxaad ku dareysaa waxoogo sokor ah. sokortaasi waxaa wanaagsan inay tahay sokorta cad, haddaad weydana tan guduudan laa ba-sa. intaa ka gadaal waxaad waraabineysaa haweeneydii ilmaha uu ka soo laabanayay, mar walba uu ka dhimanayay. biidn illaahi tabaaraka wa tacaala haweeneydaasi canugeeda waa la xifdinayaa, waa la ilaalinayaa biidn illaahi tacaala. aayaddu waxaa weeye aayadda ilaahay uu subxaanahu wa tacaala ku leeyahay: acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim, bismi illaahi alraxmaani alraxiim. waasbaxa fu'aadu ummi muusaa faariga in kaadad latubdii bihi lowlaa an rabatnaa calaa qalbiha litakuuna min almu'miniin. sadaqa allahu alcadiim. ayadaasaad walaal qoreysaa, saxan baad ku qoreysaa saan hore usoo tilmaannay. tilmaantii aan ku siinay baad raacaysaa biidn illaahi tabaaraka wa tacaala. qalbigana waxaad gashanaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu muraadkaaga kuu sakhiray. insha allahu waadna guuleysanaysaa biidn illaahi tacaala. caruur dambana kaama soo laabanayaan biidn illaahi tabaaraka wa tacaala. hadday niyadaadu wanaagsan tahay, kalaamullaahi inaad ilaahay kugu daaweynaya inaad aaminsan tahay weeye. intaa kadib walaalayaal, dee annagu waanu gudanay hawshanadii, idinka hawshiini guta. dee fiidiyowga dhaqaajiya oo like-ta ku dhufta oo sheergareeya oo maxaan ku rahdaye xagga hoosena naga qurxiya. dee xagga hoose naga qurxiya. maxaa idinku dhacay? gacanta miyaad ka go-antihiin? commentiga soo qora, na dhiirigeliya. insha allahu tacaala annagana waxaan dooneynaa wax walbo fawaa-ida inaan halkan kusoo gudbino biidn illaahi tabaaraka wa tacaala. intaasaan doonayay maanta inaa idinla wadaagsado. waadna mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.